sheekadu waxay ahayd annagoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary oo magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh Ilaahay subhanahu wa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahab leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay mafaatinkii ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii marba waxay tidhaahdaa that is beautiful way aad bay u qurux badantay ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala tawxiidka inuu ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu ilaahay halkan inala joogin inaanu ilaahay inagu dhex jirin inaanu ilaahay inaan lahayn inaanu ilaahay reer lahayn inaanu ilaahay way ka mabsuuday waxay tidhi that is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nabi maxamed iyo icjaaskiisii iyo caalam al-ajinna iyo embryology-ga iyo inuu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam quraanka loogu sheegay maraaxil ibn aadanka loo sameeyo iyo maraaxil ku waxa dhammaan u sheegay aad bay ugu mabsuud marka shantii rukun u dhameeyay ayay tiri I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tiri qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tiri anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay waxaanad arkaysid ilaahay wixii qalabkii uu siiyana waan iska zuulay oo waan iska gooyay gabadh baan ahay ilaahay dambiga may dhaafaya ilaahay dambiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa talab ma eegtaa mise waa dambi illa ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha iminka ma kor baad u eegtaa oo ba wejigaad aragtaa mise waa dambi miyaad ka jeesataa maxaad u sharaxdaa haddii ay muslimto xaggaan geeyaa ma xijaab baan u xidhay dumarkaan u geeyaa kowdha mise waxaan idhaahdaa khamiis soo xido raggiisa soo dhex taga adigoo intan xambaarsan ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo dee haddaan idinku idhaahdo waa dumarkii nin baa la tukanaya dee way dilaysaan haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana dee khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku idhi marka waa arrin weyn waa dembi ilaahay laga galay subxaanahu wa tacaala khalqigii ilaahay ku siiyey subxaanahu nin buu kaa dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaabo isku beertid inuu aaladii ilaahay ku siiyey aad ka goysid inaad meel kale waxyaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu talinay baad dhex gashay bal u kaadi ilaahay wuxuu ii hawl yareeyay inaan sacuudiga tago marka waxaan la kulmay cabdalla xuqayl wadaad yiraahdo ani waa sheekh iige muftigii buu geeyay muftigii baan ku riyaa fadiilati sheekh xaalad sida saajirta fama الحكم wadaadkii intan ka filayay inuu fatwo isiiyo wuu dawakhay markaasuu maroora dilaacay qaala ayucsi illaah بهذه الطريقة ومساسة إلهي دم الله قلها إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله مركاسو مرة إيقسي تشيستا
markaasuu wuu ignore gareeyay wadaadka halkaasaan ag fadhiyaa sheekha waxaan ku leeyahay sheekh qofku wuu isugayaa kanadan ku noqonaya iftina fi almas'ala sheekhu markaa wuu iga aamusay wax allaalay wuxuu igu idhaahdo markan la hadlaba wuxuu idhaahdaa laa xawla walaa quwata illa billah yaa sheekh gabadhi mayayn muslim misagaal baan ku daynaa laa xawla walaa quwata illa billah markaasaan ku yaa sheekh azidak min ash-shi'ri bayt aan ku sii kordhiyo in waana guurdana maxaynu samaynaa markaasuu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mid daba fadhiyaa yaa sheekh qul lahu yaktub فنجعلها أو نضعها أمام اللجنة فتوضها سوقرة وذاتها سوقرة وحن أجد بيننا وين جوينات معصية داسي فردي مركا وحي ماشى شوقي أوردن حنششق ورمية دعوة ما يلاه بس الدم بلوجا قال من معصية دا وحن درنا مركا مجلس كان إن دم بيجا إذا هاي لقى قال كان ذا لقى قال qof gaari uu ka galay inuu taabtay wadaadka halkaa jooga waxaana ii cadaysay markaa wadaadkan in hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro inuu wadnihiisu markaa aanu aradin oo aanu asaguna angegnayn inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankii ku daayay oo iimaankii ku abuuray waxaan jecelahay markaa walaalayaal inaan intaa ku soo gunaanado ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga haynoo barakay laakiin calaamado fara badan baa jira oo la isku arko haddii inta aan taabtay aad isku aragtid ama aad ogaatid inaad calaamadaha ay adigu aad calaamadaad ku dhex jirtid ay yihiin isgaad oo nafta badbaadi oo wadnaha waxaad ku rushaysaa shay min dikri illaah wa tilaawati alqur'aan iyo masaajidkood la yimaado iyo naftaad aad u xakamaysid waayo naftan bini aadankii waa cajiib waxaad bartid ayay raacdaa haddii aad markaa طaacati illaah iyo qiyaama leyl iyo dikr iyo qiraa'ata alqur'aan iyo waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay aad nafta ku maaweelisidna naftu way ku soo raaci haddii aad ku mashquulisid waxyaaba bilaa macno ah ciyaaro la daawanayo suuq dumar suuq la geynayo caruur kabahoodii iyo koofiyadahoodii laga shaqaynayo waxyaabo umuura dunya aad isku mashquulisid ayadoo aad kula tagtay ay kula fogaatay baad arki doontaa markuu malakal mawt uu yimaado aniga intaas iga tahay ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أدري إن ودادد وقت السؤال يجواب أي جيران يا إن كلا حكمي قبل محاي كقاعد علماء هرتش علماء ويسكو خلاف وي شيخ آل الشيخ يا عبد الله المطلق وشوقي مركا يا الحقين إن يا غديان انت بوي تشوغين تنا رحمهم الله انت كنا حفظهم الله وي وحفت ودا ويسين كروايه وحن اوتغي مركا شيخ الله يراهدو عبد العزيز إن الفوزان عبد العزيز الفوزان وحي سيهين شيخ صالح الفوزان وانا شيخ نلتشوغي مرايكن كشن سنضاد واحوال الغرب يا مشاكل كغرب كتشرة امشى السنوات دل دحنولا مسألة دي مركا وحو يري وحواجب إن قبرني سيدي وإلهي وأبوري اسكو عليسو ومركا وحن أيس جليسي اسكسارته إن اسكو مدو هرمونات كي لوغو تلاقى إن للذكور أو الذكورية marka male hormones bay dhahdaan marka raganimadii waa inay soo celisaa marka irbada isku mudaano irbadahani gad timihii buu ka jaraya codkii buu ka dhigayaa cod naacim oo soft ah in way waxa isku mudaan hormoonad unthawiya
marka waa in hormoonaad dakariya isku muda oo asligiisii ku noqda waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sanada ah iyo lacag fara badan marka loo doono marka aalati dhakara loo doono ila aalati untha wamka ayuu xambaarsan yahay gabadh buu iska dhigay marka waa nimada lagu soo celiyaa mar labaad waxaan muddo qaadanaysaa fadiilati sheekh muddada maxaa la sameeyay kayfa yutaamal maca hada al-insan sideebaan ula macaamilna marka wuxuu yidhi fi lwaqti alxaadir waqtiga xaadirka ah waxay asligu inuu xukunka sharciga uu ognahay qofka bini aadamka waa saddex waa dhakar waa untha iyo khuntha saddexdaa weeye ama dee waa nin ama waa gabadh ama waa labeeb marka wuxuu yidhi labeebkii ma gelin karo oo ilaahay saa umuu abuurin ayadaa iska dhigtay oo asagaa iska dhigay laakiin bixukma daahirkii haddii qofku doonaya inuu masaajid yimaado walaa budda inuu masaajid yimaado waa inuu qisma dumarka lagu biiriya marka qism dumarka waa in lagu biiriya hadhow marka codku uu soo noqdo oo arko marka inuu uu soo gelayo qismigii ama noociyati rujuliya ama noociyati rajul uu soo gelayo marka waa inuu marka xagga dumarka loo soo wareejiyo waxaan u malaynayaa xagga ragga cafwan waxaan u malaynayaa inay ka dhacdeen mas'alo saasoo kale ah ayna namsa ama Switzerland iyo Sweden meelba ka dhacday imaamku marka wuxuu ka dhigay imaamkaasi xukm al-khuntha laakiin sheekh al-Fawzan wuxuu xukm al-khuntha iyo aydan inni wadaadkan la yiraahdo Salman Awda xukm ah in loo celiyo asligiisii qofka wallahu a'la wa a'lam